بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ومد الريتش وتي ضل يدبت بيل والبو أي جوجان وعنيقة دقة عيسى ظهر وحن هالكن كلا هالليا ومد الريتش وتي دمان تودبا كدبت شوجا إيو كو ضل شوجا وحن هالكن مانتا isoo taagay oo aan ka hadlayaa waa dhibaatada walaalkeen Fuad Yusuf Ali haysata. Fuad Yusuf Ali arintiisu imika ma bilaabmin, in badan ayay socotaa arintiisu. Intaasoo dhan ay socotana waxa aan aniga oo deeqa Ciise aan uga aamusnaa rajaan sugay, rajo ayaan qabay, rajo ayaan ka sugayay madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Geeli. waxa aan ka sugayay ina ka arintiisa si wanaagsan loo rido, si fiican waxa uu tabanayo iyo waxa uu sheegayo oo runa oo midbeeniye ku jirin ina laga cafiyo, la xaalmarin loo sameeyo, la isdaba qabto. isaga ayaa maanta madaxweynuhu u ah dalka hogaamiye aabo u dhaxeeya ummadda. waxaan halkan idinka sheegayaa ummadda reer Djibouti sida aad u dhantihiin, rag dumar wiil gabadh yar iyo weyn. waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayn, ayaan idin sheegayaa. waxaan idin sheegayaa inaydan gaari ka marnayn, ayaan idin sheegayaa. waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayno Fuad Yusuf Ali ayaa geesinimo idinku filan. aragti la arko geesi amba la dhandhamiyo waxa idinku filan Fuad Yusuf Ali. gaarina de isku sheegi maayo way idinka buuxdaa, idinka ayay idinka buuxdaa gaari, idinka ayaa 24 saacadood dumarka reer Djibouti ay ka hadlayaan facebookyada oo dariiqyada socdaan iyaga iyo ubadku. waxaan la hadlayaa ummadda reer Djibouti baan la hadlayaa. degta si fiican u fura reer Djibouti. dulmiga halka aad ka arkaysaan 24 saacadood halka la idinka tusay waa wax la inagu itixaamayo, waa wax Ilaahay inagu itixaamayo, waa wax maalinka qiyaamaha la ina soo joojin doono, la inagu itixaami doono, la ina weydiin doono walaalkeena ku tukanaya kaniifka ku dhex tukanaya ee kaniifka ku dhex nool waxa aynu uga hadli weynay waa la ina weydiin. ma garanayo inaad aragteen, inaad la dareenteen inta uu Fuad xiran yahay 2 jeer ayuu dalku gariiray. Djibouti 2 jeer ayuu dalku gariiray. inaan kaliya yahay iyo inay ummaddu ila dareentay way soo sheegi doonaan. waxana calaamado ku tusaysa in la idinka doonayo ficil inaad samaysaan. reer Djibouti hadal iyo waqtigii hunu loo baahnaa midtoona ma joogno. aniga oo deeqa Ciise duhura waxa aan halkan aan idinka leeyahay oon maxaa la yiraahdaa idinka soo diraya fariin aad u culus oon ku doonayo beri toole jimcaha inaad ku garab joogsataan walaalkiin Fuad Yusuf Ali oo qabri looga dhigay, kaniif looga dhigay qabri, oo noloshiisa dhimashadii ku sugayay halka. geesi kama madhidin waan idinku calinayaa. 100 Fuad ayaa idinku jira, 200 Fuad ayaa idinku jira. مليونكeenuba waxaynu nahay wada Fuad, مليونكeenuba waxaynu wada nahay gaari, waxaynu nahay dadka aan iskala qaadin baynu nahay. imika ayaa leena soo dhaxgaliyaa waxa. laakiin waxaan halkan idinka sheegayaa dadka Fuad moodaya qabiilo ku quusta, igu quusta aniga. dadka Fuad moodaya qabiilo igu quusta aniga. xaq darradu inay jirto Djibouti cidna geedga ma qarsoona. waad ogtihiin habeenkii sida aad ii taageerteen, sida aad ii soo garab joogsateen, sida aad u muujiseen in aad ka xuntiin wixii halka ka dhacay, dareen aad ila dareemiseen. nin walba waxa godkiisa ku haysta inaad habeenka halka ka daawateen ayaa idin soo dareeriyay. taasi ayaa idin kicisay. marka maantana waa daawateen fiidiyoogii uu idin soo duubay walaalkeen. nin waliba waa inay taabato, nin waliba waa inuu halka uu ku jiro walaalkeen qofka damiir kale ee reer Djibouti uu ka murugoonaya, uu ka dhiidhiyaya walaalahayo.
وكديدية أنا وحن قاصدي أنا هوية لبا وبدله إن لبا إذا وبتضبط دي سكودر أيان قاصدي علنك أنسيتو واد أركتان وعلن كيني دريس كشرفت له أنسيتو واد أركتان ودريس كيني ودريس كشرفتي سي كرامتي ولها لقى حيوبي وين ودريس وكوعي ليهي نك دريس كسيتي وين ودريس وكوعي ليهي نك سيدا نك ووسدو محل هذا شعبك وكدل ميهي وين شعبك وكدل ميهي وين loo soo diro afar sida ugu cagcagayso marka ay hadlaan marka ay yiraahdaan waxaan doonaynaa xaqayaga waxaan doonaynaa cadaalad baan doonaynaa loogu soo diro lagu muquuniyo waa kani weeyaan ka kasitay uu ku dulman yahay waa kani weeyaan ka kasitay aan galan loo biirin waa kani weeyaan kasitay qabiil loo kala qaado anigu qabiil ma nihin fuaadna qabiil ma he waa qaran ku quuso وأنا دي شيء نكى قبيل موضة يوقوصه أنا بحالكن وحن كركيجا ريتش بوتيو إذن كهرتين إذن درتين أيانو قاضي دريسك إذن كهرتيننا وحن هالكن كل جاية عاوة دريسك أيان عاوة هالكن كل جاية أنا جو دقيقة عيسى ظهورا وحن دي دريسك شرفتيسة أنا احترامي أو دوري إلا أنت الشرفتيس وصل نقنيسو أن لا لابتون ميلتو أيان جو أنصدي waxaan go'aansaday ilaa inta ay shacbigu ku dulman yihiin dareyskooga in aan korkeyga ka dajiyo ayaan go'aansaday waxaan go'aansaday inta uu ka sitay uu ku dulman yahay ayaan dhigaya ayaan dhiganaya in dareyskaas marka waxbayaan hadalku ila tararin reejibutiyo waxaan idin kala yahay waa milay iyo male waa milay iyo male waa milay iyo male kaca صباح بريتولة إلا أنت أنو كقول قارينو وينو كرنا بقول واحد إنو كنت ترتدى لنيرة أو الذكية أو نكاسي أو جوهري هالكاتشي فأيقود كالجوردي واي إسقى حداد محل هذا مقلي ترتين إنه بديل دونو إن جنرالك أنا بقول واحد نكلا يعني إنه مدحوينها بديل دونو أيان هالك كشجعية إنه بديل كرو وكرتدي ديلي هاي أيون وشجعي إن فوانكو وحونا تصي فايبليتيجا أي لا هاي سكرتيجا مقالدو إسقى وجود كيسي كجرا أيو تليفون اسكو صادوبي إن أنا سكرتيجرين هالكاسدين أيودي كعدي أنكرين فوا إن أنا وضن كان يديبو هبينو باهي هاي أيو هالكا إدي كعدي ولا لا هيو أنا بو وحنو نهاي هو يدا مات أيانو نهاي وبتكين هدينو أصو ساري وينو مستقبل كهدينو وتشيح وينو هو يوي كان نهاري waxaanu kaga duwanahay dad wax bartay baynu nahay dad wax bartay ayaynu nahay waa inaynu ubadkeena u jeexno maanta kuwii ka fikirayeen calooshooda manihin hooyooyinkeen waxay nagu soo korineen inay caloosheena ka fikiraan yaanu ilmahaagu gaajoon inay ka fikiraan anu ilmahayga gaajadiisa oo kaliya kama fikiray waxaan ka fikirayaa avenirkiisa ayaan ka fikirayaa shaqada uu qaban doonaan ka fikirayaa waxaan doonayaa inuu shaqada uu qaban dooni ay noqoto uu ku kasbado wixii in ilaahay baray iyo kartidiisa iyo raganimadiisa tu aan la riixin oo reer hebel baa tahay loo riixin ayaan doonayaa adigu haddii aad shoomeer tahay wad og tahay shaqo la'aan inaan Djibouti inay shaqo la'aantu ay ka jirto Djibouti shaqooyin in la abuuro la karayo la diidan yahay salaakiin adiga oo shoomeera ayaad ku calaacalaysaa gurigaagii kaagii shaqada haystay waxa aad ku ciilan tahay shaqadaadii promotion ma heshid waa lagu jirjiraa waa lagu cadibaa منها lagu hayaa anu hadal idinku soo laakiin shucuurtaydu aad bay caawa u kacsan tahay rajulti aad bay u kacsan tahay walaalahayo aad bay u kacsan tahay ilaa xad waxaan rabaa inaan korkayga ka dajiyo dirayska sharafta leh ee ciziga leh ee karaamada leh ee intaaba lagu tuntay ayaan korkayga ka dajinayaa walaalahayo korkayga ayaan ka dajinayaa bisinka ayaan u qabanayaa qadarin iyo sharaf iyo wanaag iyo maamuus aanu hayo ayaan bisinka ugu qabanayaa waana karaamo ilaahay baana ku siiya ilaahay ayaa ku siiyo ibn aadani kuma siiso
ها korkayga kuma sidayo korkayga kuma sidayo ilaa ay u soo noqonayso karaamadiisii ilaa ay u soo noqonayso cizigiisii iyo sharaftiisii anigu korkayga ku sidi maayo korkayga ku sidi maayo maantana faanse juan ilaa uu ka soo baxay halka anigu fuaad yuusuf ilaa uu halka ka soo baxay faanse juan aan feeteynayay ima ahaato rajabutiyo ima ahaato calanka uu wiilkiisii uu ku ciilan yahay calanka uu hooyadii ay ku ciilan tahay calanka ay ku ciilan tahay uu ku ciilan yahay bayloodku wuxuu ahaa ninka lagu faano buu ahaa bayloodku wuxuu ahaa ninka la hiigsado ayuu ahaa ee adduunyada ku tartanto ayuu ahaa inagu bayloodkeennii ayaynu gudaafa dhex jeexinay bayloodkeennii ayaynu kaniif dhex jeefinay sidee inoo qabataa inama qabatataa kamana geyno madaxweynaha adeerkay waxaan ku leeyahay adeerkay ismaaciil cumar geele waxaan ku leeyahay abaalkaagii demilsaysa kugu ekaato abaalkaagii demilsays baan guday maanta waxaan gudayaa abaalka shacbiga reer Jabuuti waxaan gudayaa abaalka walaalkay fuaad yuusuf cali ayaan gudayaa ayaan leeyahay halka aad igeynaysaan anigu diyaar baan ahay aniga faraxsan aniga oo qoslaya aniga oo ku sheegaya inay aniga in iga badan oo iga karti badan ay igu jirto magaalada Jabuuti iyo Jibuutiyaanku ay joogaan ayaan ku sheegaya aniga oo qoslayo oo faraxsan aniga oo ku faraxsan xaq aan ku hadlayo aniga oo ku faraxsan inuu Ilaahay iga garab galayo aniga oo ku faraxsan inaana guuleysan doono aan hubo ayaan kula hadlaya adeero maanta sidii aad igu soo baxdeen reer Jabuuti abaalkiini ayaan gudayaa abaalkii waxaan gudayaa oo igu lahaa walaalkay fuaad yuusuf cali madaxiisu haraago baan leeyahay walaalahayo hadal intaa idinka sii badin maayo walaalahayo aad baan idin salaamayaa meel walbo aad joogtaan ballanteennuna waxay tahay libinta oon gaadhno oon insha allah aad soo baxdaan meel walbo aad joogtaan aad soo baxdaan rag iyo dumar iyo ubad iyo dumar iyo dhalinyar waan arkayaa ee raggii mee mar walba waxa u horkaca ummadda oo u horseeda waa hooyo ayaa mar walba diidida iyada weeyaan ta inanteedu guriga dibloomada ula dhex fadhiyaan ee la ooyayaan iyada weeyaan ta inanteedu shaqada ay joogaan ay ku ciilan yihiin ee lagu cadaabayo waa iyaga weeyaan waa iyada taxabada baastada lagu qaaliyeeyay waa iyada ta mar waliba gunta reerka og waa iyada hooyoy u tur wiilkaaga hooyoy u tur gabadhaada aayahooga ha ka aamusin inta aad u gilgilan karto u gilgilo sida ay noogu soo dhiibeen hooyooyinkeenii soo halgamay inaan annaguna ugu sii dhiibno kartida iyo raganimada ubadkeennu waa lagama maarmaan waa muqadas Jabuuti way jiri xumaantuna way tagi inaga oo gacmaha ishaysana oo qas iyo qalalaasa sameeyeen oo shakhsi kaliya diidayna oo leh adeero waan kaa dharagnay hadeed waan kaa dharagnay adeer waan kaa quusanay adeer waan kaa qanacnay hadeed adeer ixtiraamka iyo waalidnimada aan ku hayo ayaan kugu ixtiraamayaa wali waxaana kaa codsanayaa in aad si qurux badan sida aan kuugu karaameyneen kuugu maamulnay kuugu cimaamadnay inaad adiguna uga degto meesha adiga oon dalka qalalaasa gelin adiga oon dadka dhibaato u keenin anagu waayo dhimasho ayaanu diyaar u nahay haddii ay gaadho dhimasho ayaanu diyaar u nahay tani rag baa usoo dhintay tani dumar baa usoo dhigtay laakiin geesigeyga maanta wuu dhiman gaarideedii maantuna way joogtaayo diyaar ba u tahay inay u dhimato geesigeediina diyaar buu yahay inuu dhinto waa kaa isaga oo qoslaya qabrigii aad ku rideen idinka soo diraya fariinta Jabuuti aad bay shucuurteeda u kacsan tahay iga raali ahaada haddii aan hadalka idinku badiyay laakiin waajib baan gudanayaa waajib diinimaan gudanaya halka uu salaada ku tukanayo ayaa aad noqotay midan qaadan kari waayay rajo badanna waan lahaa horena waan idinku soo sheegay hadalka ku noqon maayo aad baan idin salaamayaa walaalahay waxaan idin leeyahay waynu guuleysan doonaa wanaag baynu ku soconaa
الله أكبر هاللغو صبحو الله أكبر هاللغو صبحو الله أكبر هاللغو صبحو ولا الله يوم هالكاسان كقبحيا هذا الكيغا أدنواني دي سلاميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ومد الرئيس جوتي ضل يدبت بيلو والبو أي جوغان وانيغا ديقا عيسى ظهر waxaan halkan kala hadlayaa ummadda reer Djibouti dhammaantoodba ku dibad jooga iyo ku dal joogaba waxa halkan maanta isoo taagay oo aan ka hadlayaa waa dhibaatada walaalkeen Fuad Yusuf Ali haysata. Fuad Yusuf Ali arrintiisu imika ma bilaabmin, in badan ayay socotaa arrintiisu. intaasoo dhan ay socotana waxa aan aniga oo deeqa ciise aan uga aamusnaa rajaan sugayay, rajo ayaan qabay, rajo ayaan ka sugayay madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Geele. waxa aan ka sugayay inaka arrintiisa si wanaagsan loo rido, si fiican waxa uu tabanayo iyo waxa uu sheegayo oo runa oo midbeeniyi ku jirin ina laga cafiyo, la xaalmarin loo sameeyo, la isdaba qabto. isaga ayaa maanta madaxweynuhu u ah dalka hogaamiye aabo u dhaxeeya ummadda. waxaan halkan idinka sheegayaa ummadda reer Djibouti sida aad u dhantihiin, rag, dumar, wiil, gabadh, yar iyo weyn. waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayn, ayaan idin sheegayaa. waxaan idin sheegayaa inaydan gaari ka marnayn, ayaan idin sheegayaa. waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnaynoo Fuad Yusuf Ali ayaa geesinimo idinku filan. aragti la arko geesi amba la dhandhamiyo waxa idinku filan Fuad Yusuf Ali. gaarina de isku sheegi maayo way idinka buuxdaa, idinka ayay idinka buuxdaa gaari, idinka ayaa 24 saacadood dumarka reer Djibouti ay ka hadlayaan facebookyada oo dariiqyada socdaan iyaga iyo ubadku. waxaan la hadlayaa ummadda reer Djibouti baan la hadlayaa. degta si fiican u fura reer Djibouti. dulmiga halka aad ka arkaysaan 24 saacadood halka la idinka tusay waa wax la inagu itixaamayo, waa wax Ilaahay inagu itixaamayo, waa wax maalinka qiyaamaha la ina soo joojin doono, la inagu itixaami doono, la ina weydiin doono. walaalkeena ku tukanaya kaniifka ku dhex tukanaya ee kaniifka ku dhex nool waxa aynu uga hadli weynay waa la ina weydiin. ma garanayo inaad aragteen, inaad ila dareenteen inta uu Fuad xiran yahay 2 jeer ayuu dalku gariiray. Djibouti 2 jeer ayuu dalku gariiray. inaan kaliga yahay iyo inay ummaddu ila dareentay way soo sheegi doonaan. waxana calaamado ku tusaysa ina la idinka doonayo ficil inaad samaysaan. reer Djibouti hadal iyo waqtigii hunu loo baahnaa midtoona ma joogno. aniga oo deeqa ciise duhura waxa aan halkan aan idinka leeyahay oon maxaa la yiraahdaa idinka soo diraya fariin aad u culus oon ku doonayo beri toole jimcaha inaad ku garab joogsataan walaalkiin Fuad Yusuf Ali oo qabri looga dhigay, kaniif looga dhigay qabri, oo noloshiisa dhimashadii ku sugaya halka. geesi kama madhidin waan idinku calinayaa. 100 Fuad ayaa idinku jira, 200 Fuad ayaa idinku jira. maliyoonkeenuba waxaynu nahay wada Fuad, maliyoonkeenuba waxaynu wada nahay gaari, waxaynu nahay dadka aan iskala qaadqaadin baynu nahay. imika ayaa layna soo dhexgeliyaa waxa, laakiin waxaan halkan idinka sheegayaa dadka Fuad moodaya qabiilow ku quusta, igu quusta aniga. dadka Fuad moodaya qabiilow igu quusta aniga. xaq darradu inay jirto Djibouti cidna geedgoma qarsoona. waad ogtihiin habeenkii sida aad ii taageerteen, sida aad ii soo garab joogsateen, sida aad u muujiseen in aad ka xuntihiin wixii halka ka dhacay, dareen aad ila dareemiseen. nin walba waxa godkiisa ku haysta inaad habeenka halka ka daawateen ayaa idin soo dareeriyay. taasi ayaa idin kicisay. marka maantana waa daawateen
فيديوغي ويدين صدبي ولا الكين نم ولبا وإن يتابطو نم ولبا وإنه halka uu ku jiro walaalkeen qofka damiirka leh ee Djibouti uu ka murugoonaya uu ka dhiidhiyaya walaalahayo uu ka dhiidhiyaya anigu waxaan goostay aniga oo hooyo ah laba ubada leh inaan labadayda uba todobadiisa ku daro ayaan goostay calanka aan sito waad aragtaan waa calankeeni dirayska sharafta leh aan sito waad aragtaan waa dirayskeenii ودريسكا شرفتيسي iyo karaamadii uu lahaa laga xayuubiyay weeyaan ودريسكا uu ku ciilan yahay ninka dirayska siti weeyaan ودريسكا uu ku ciilan yahay ninka sida ninka uu u sido maxaa la dhahaa shicibka uu ku dulman yahay weeyaan shicibku uu ku dulman yahay weeyaan ee loo soo diro afar sida ugu cagacagayso marka ay hadlaan marka ay yiraahdaan waxaan doonaynaa xaqayaga waxaan doonaynaa عدالة باندونينا لوجو صدره اللوجو مقونيو وكني ويان ككستي وكد الميهي وكني ويان ككستي أنجلون لابيرن وكني ويان كستي قبيل لو كلا قاعد أنا قبيل منهم فؤادنا قبيل ما هي وقرن كوكوصو وانا دي الشيء نكي قبيل موضة يوكوكوصو أنا هالكن وحان كركيجا ريتشبوتيو إذن كهرتين إذن درتين أيانو قاضي دريسك إذن كهرتيننا وحن هالكن كردقا يا عاوة دريسك أيان عاوة هالكن كردقا يا أنا قو دقيقة عيسى الظهورة وحن ديدي دريسك شرفتيسا أنا احترامي أو دوري إلا أنت شرفتيسا وصو نقونيسو أن لا لابتو أون ميلتو أيان قو أنصدي waxaan go'aansaday ilaa inta ay shacbigu ku dulman yihiin dareyskooga in aan korkeyga ka dajiyo ayaan go'aansaday waxaan go'aansaday inta uu ka sitay uu ku dulman yahay ayaan dhigaya ayaan dhiganaya in dareyskaas marka waxbayaan hadalku ila tararin Djibouti waxaan idin kala yahay waa milay iyo male waa milay iyo male waa milay iyo male kaca صباح بريتولي إلا أنت أنو كقول قارينو وينو كرنا بقول واحد إنو كتير تدلنيا أو الذكية أو نكاسي أو جوهري هالكاتشيفة يقول كل جوردي واي إسقى حداد محل را مقلي ترتين إنه بديل دانو إن جنرالك أنا بقول واحد نكلا يعني إنه مدحوينها بديل دانو أيان هالك كشجعية إنه بديل كرو وكرتدي دليل يعني أيون وشجعي إن فوانكو وحونا تصي فايبليتيغا اي leedahay securityga magaaladu isagoo oo godkiisii ku jira ayuu telefoon isku soo duubay inaanu security jirin halkaas ayuu idin ka cadeeyay encore une fois inaanu wadankani dib habayn u baahan yahay ayuu halka idin ka cadeeyay walaalahayo annagu waxaanu nahay hooyada maanta ayaynu nahay ubadkeena hadaynu u soo saari weyno mustaqbalka hadaynu u jeexi weyno hooyooyinkeenii hore waxaanu kaga duwanahay dad wax bartay baynu nahay dad wax bartay ayaynu nahay waa inaynu ubadkeena u jeexno maanta kuwii ka fikirayeen calooshooda ma nihin hooyooyinkeen waxay nagu soo korineen inay caloosheena ka fikiraan yaanu ilmahaagu gaajoon inay ka fikiraan anu ilmahayga gaajadiisa oo kaliya kama fikiray waxaan ka fikirayaa avenirkiisa ayaan ka fikirayaa shaqada uu qaban doonaan ka fikirayaa waxaan doonayaa inuu shaqada uu qaban dooni ay noqoto uu ku kasbado wixii ilaahay baray iyo kartidiisa iyo raganimadiisa aan la riixin oo reehbel baa tahay loo riixin ayaan doonayaa adigu hadii aad shoomeer tahay wad og tahay shaqo la'aan inaan Djibouti inay shaqo la'aantu ay ka jirto Djibouti shaqooyin in la abuuro la karayo la diidan yahay laakiin adiga oo shoomeera ayaad ku calaacalaysaa gurigaagii kaagi shaqada haystay waxa aad ku ciilan tahay shaqadaadii promotion ma heshid waa lagu jirjiraa waa lagu cadibaa ما حصل بهايا أنا هذا إذا كسو لكن شعورتي عاد بيعاو أكعسن تاي Djibouti عاد بيأكعسن تاي ولا الله يوم عاد بيأكعسن تاي إلى حد محربة إن كركيجا كدتشيو دريسكا شرفت له عزق له كرامة له أنت هذا اللي قلتني أنت هذا اللي قلتني أيام كركيجا كدتشينيا ولا الله يوم كركيجا أيام كدتشينيا بس إنك أيام قبنيا قدرين يا شرف إيو wanaag iyo maamuus aanu hayo ayaan bisinka ugu qabanaya wana karaamo ilaahay baana ku siiya ilaahay ayaa ku siiyo ibn aadani kuma siiso
ها korkayga kuma sidayo korkayga kuma sidayo ilaa ay u soo noqonayso karaamadiisii ilaa ay u soo noqonayso cizigiisii iyo sharaftiisii anigu korkayga ku sidi maayo korkayga ku sidi maayo maantana Vansejuan ilaa uu ka soo baxay halka anigu Fuad Yusuf ilaa halka ka soo baxay Vansejuan aan fiitinayay ima ahaato Rejibutiyo ima ahaato calanka uu wiilkiisii uu ku ciilan yahay calanka uu hooyadii ay ku ciilan tahay calanka ay ku ciilan tahay uu ku ciilan yahay bayloodku wuxuu ahaa ninka lagu faano buu ahaa bayloodku wuxuu ahaa ninka la hiigsado ayuu ahaa ee adduunyada ku tartanto ayuu ahaa inagu bayloodkeennii ayaynu gudaafad dhex jeexinay bayloodkeennii ayaynu kaniif dhex jeefanay sidee inoo qabataa inama qabatataa kamana geyno madaxweynaha adeerkay waxaan ku leeyahay adeerkay Ismaaciil Cumar Geele waxaan ku leeyahay abaalkaagii deemilsays kugu ekaato abaalkaagii deemilsays baan guday maanta waxaan gudayaa abaalka shacabka reer Djibouti waxaan gudayaa abaalka walaalkay Fuad Yusuf Ali ayaan gudayaa ayaan leeyahay halka aad igeynaysana anigu diyaar baan ahay aniga faraxsan aniga oo qoslaya aniga oo ku sheegaya inay aniga in iga badan oo iga karti badan ay igu jirto magaalada Djibouti iyo Djiboutiyaanku ay joogaan ayaan ku sheegaya aniga oo qoslaya oo faraxsan aniga oo ku faraxsan xaq aan ku hadlayo aniga oo ku faraxsan inuu Ilaahay iga garab galayo aniga oo ku faraxsan inaana guuleysan doono aan hubo ayaan kula hadlaya adeero maanta sidii aad igu soo baxdeen reer Djibouti abaalkiini ayaan gudayaa abaalkii waxaan gudayaa uu igu lahaa walaalkay Fuad Yusuf Ali madaxiisu haraago baan leeyahay walaalahayo hadal inta idinka sii badin maayo walaalahayo aad baan idin salaamayaa meel walbo aad joogtaan ballanteennuna waxay tahay libinta oon gaadhno oon insha Allah aad soo baxdaan meel walbo aad joogtaan aad soo baxdaan rag iyo dumar iyo ubad iyo dumar iyo dhalinyar waan arkayaa ee raggii mee mar walba waxa u horkaca ummadda oo u horseeda waa hooyo ayaa mar walba diidida iyada weeyaan ta inanteedu guriga dibloomada ula dhex fadhiyaan ee loo ooyayaan iyada weeyaan ta inanteedu shaqada ay joogaan ay ku ciilan yihiin ee lagu cadaabayo waa iyaga weeyaan waa iyada taxabada baastada ah lagu qaaliyeeyay waa iyada ta mar waliba gunta reerka og waa iyada hooyoy u tur wiilkaaga hooyoy u tur gabadhaada aayahooga ha ka aamusin inta aad u gilgilan karto u gilgilo sida ay noogu soo dhiibeen hooyooyinkeenii soo halgamay inaan annaguna ugu sii dhiibno kartida iyo raganimada ubadkeennu waa lagama maarmaan waa muqadas Djibouti way jiri xumaantuna way tegi inaga oo gacmaha ishaysana oo qas iyo qalalaasa sameeyeen oo shakhsi kaliya diidayna oo leh adeero waan ka dharagnay hadeed waan ka dharagnay adeer waan ka quusanay adeer waan ka qanacnay hadeed adeer ixtiraamka iyo waalidnimada aan ku hayo ayaan kugu ixtiraamayaa wali waxaana ka codsanayaa in aad si qurux badan sida aan kuugu karaameyneen kuugu maamulneen kuugu cimaamadnay inaad adiguna uga degto meesha adiga oon dalka qalalaasa gelin adiga oon dadka dhibaato u keenin anagu waayo dhimasho ayaanu diyaar u nahay haddii ay gaadho dhimasho ayaanu diyaar u nahay tani rag baa u soo dhintay tani dumar baa u soo dhigtay laakiin geesigeyga maanta uu dhiman gaarideedii maantuna way joogtaayo diyaar u tahay inay u dhimato geesigeediina diyaar buu yahay inuu dhinto waa kaa isaga oo qoslaya qabrigii aad ku rideen idinka soo diraya fariinta Djibouti aad bay shucuurteedu u kacsan tahay iga raalli haddii aan hadalka idinku badiyay laakiin waajib baan gudanayaa waajib diinimaan gudanaya halka uu salaada ku tukanayo ayaa noqotay midan qaadan kari waayay rajo badanna waan lahaa horena waan idinku soo sheegay hadalka ku noqon maayo aad baan idin salaamayaa walaalahay waxaan idin leeyahay waynu guuleysan doonaa wanaag baynu ku soconaa
الله أكبر هاللغو صبحه الله أكبر هاللغو صبحه الله أكبر هاللغو صبحه ولا الله يوم هل كاسن كجبح يا هذا الكيجا أدنوان دين سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ومضى الرجوتي ضل يدبت بيل والبو أي جوجان وأنيجا دقة عيسى ظهر وحن هالكن كلا هالليا ومضى رجوتي دمان تودبا كدبت شوجا إيو كو ضل شوجا وحن هالكن مانتا الصوت هاجي أو عن كهالليا ودبتها ولكن فؤاد يوسف علي حيسطا فؤاد يوسف علي أرنتيسو إما كما بلعمي إن بدن أي سعطة أرنتيسو إنت أصلاً أي سعطنا وح عن أنيجو أو دقة عيسى عنو أمسنا رجع سجي رجو أيام قبي رجو أيام كسجي مدحوينها ضلك إسماعيل عمر جيلي وح عن كسجي إنا كأرنتيسا سوى نفسن لوردو سفي عن waxa uu tabanayo iyo waxa uu sheegayo oo runa oo marbeeniyo ku jirin ina laga cafiyo la xal marin loo sameeyo la isdaba qabto isaga ayaa maanta madaxweynuhu u ah dalka hogaamiye aabo u dhaxeeya umada waxaan halkan idinka sheegayaa umada reer Djibouti sida aad u dhantihiin rag dumar wiil gabadh yar iyo weyn waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayn ayaan idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa inaydan gaari ka marnayn ayaan idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayno Fuad Yusuf Ali ayaa geesinimo idinku filan aragti la arko geesi amba la dhandhamiyo waxa idinku filan Fuad Yusuf Ali gaarina de isku sheegi maayo way idinka buuxdaa idinka ayay idinka buuxdaa gaari idinka ayaa 24 saacadood dumarka reer Djibouti ay ka hadlayaan facebookyada oo dariiqyada socdaan iyaga iyo ubadku waxaan la hadlayaa umada reer Djibouti baan la hadlayaa dagta si fiican u fura reer Djibouti dulmiga halka aad ka arkaysaan ee 24 saacadood halka la idinka tusay waa wax la inagu itixaamayo waa wax ilaahay inagu itixaamayo waa wax maalinka qiyaamaha la ina soo joojin doono la inagu itixaami doono la ina weydiin doono walaalkeena ku tukanaya kaniifka ku dhex tukanaya ee kaniifka ku dhex nool waxa aynu uga hadli weynday waa la ina weydiin ma garanayo inaad aragteen inaad ila dareenteen inta uu Fuad xiran yahay 2 jeer ayuu dalku gariiray Djibouti 2 jeer ayuu dalku gariiray inaan kaliga yahay iyo inay umadu ila dareentay way soo sheegi doonaan waxana calaamado ku tusaysa ina la idinka doonayo ficil inaad sameysaan reer Djibouti hadal iyo waqtigii hunu loo baahnaa midtoona ma joogno aniga oo deeqa ciise duhura waxa aan halkan aan idinka leeyahay oon maxaa la yiraahdaa idinka soo diraya fariin aad u culus oon ku doonayo beri toole jimcaha inaad ku garab joogsataan walaalkiin Fuad Yusuf Ali waxaan idinka leeyahay waa milay iyo male kaca soo baxa beri toole ilaa inta aynu ka guul gaarayno waynu karnaa boqol waxa inagu jirta dhalinyaro oo idikeeya oo ninkaasi uu ugu horeeyay halka jiifa ee godka lagu riday way isaga haddaad maxaa la yiraahdaa maqli jirteen inuu bedeli doono generaalka anigu waxaan idinka leeyahay inuu madaxweynaha bedeli doono ayaan halka ka sheegaya inuu bedeli karo uu kartideedii leeyahay ayuu noo sheegay in fuanko waxa uu na tusay faybiliteega ay leedahay securityga magaaladu isaga oo godkiisii ku jira ayuu telefoon isku soo duubay inaanu security jirin halkaas ayuu idinka cadeeyay encore une fois inaanu wadankani dib habayn u baahan yahay ayuu halka idinka cadeeyay walaalahayo annagu waxaanu nahay
hooyada maanta ayaynu nahay ubadkeenna haddaynu u soo saari weyno mustaqbalka haddaynu u jeexi weyno hooyooyinkeennii hore waxaanu kaga duwannahay dad wax bartay baynu nahay dad wax bartay ayaynu nahay waa inaynu ubadkeenna u jeexno maanta kuwii ka fikirayoon calooshooda ma nihin hooyooyinkeen waxay nagu soo korineen inay caloosheenna ka fikiraan yaanu ilmahaagu gaajoon inay ka fikiraan anu ilmahayga gaajadiisa oo keliya kama fikiray waxaan ka fikirayaa avenirkiisa ayaan ka fikirayaa shaqada uu qaban doonaan ka fikirayaa waxaan doonayaa inuu shaqada uu qaban dooni ay noqoto tu uu ku kasbado wixii ilaahay baray iyo kartidiisa iyo raganimadiisa tu aan la riixin oo ree hebel baa tahay loo riixin ayaan doonayaa adigu haddii aad shoomeer tahay waad og tahay shaqo la-aan inaanay Djibouti inay shaqo la-aantu ay ka jirto Djibouti shaqooyin in la abuuro la karayo la diidan yahay laakiin adiga oo shoomeera ayaad ku calaacalaysaa gurigaagii kaagii shaqada haystay waxa aad ku ciilan tahay shaqadaadii promotion ma heshid waa lagu jirjiraa waa lagu cadibaa nunahaasa lagu hayaa anu hadal idinku soo laakiin shucuurtaydu aad bay caawa u kacsan tahay reer Djibouti aad bay u kacsan tahay walaalahayo aad bay u kacsan tahay ilaa xad waxaan rabaa inaan korkayga ka dejiyo dirayska sharafta leh ee ciziga leh ee karaamada leh ee intaaba lagu tuntay ayaan korkayga ka dejinayaa walaalahayo korkayga ayaan ka dejinayaa bisinka ayaan u qabanayaa qadarin iyo sharaf iyo wanaag iyo maamuus aanu hayo ayaan bisinka ugu qabanayaa وانا كرامه إلهي بانا كسية إلهي أيا كسية من آدني كما سيسو ها korkayga kuma sidayo ilaa ay u soo noqonayso karaamadiisii ilaa ay u soo noqonayso cizigiisii iyo sharaftiisii anigu korkayga ku sidi maayo maantana Vincent Juan ilaa uu ka soo baxay halka anigu Fuad Yusuf ilaa halka ka soo baxay Vincent Juan aan fiitinayay ima ahaato reer Djibouti ima ahaato calanka uu wiilkiisii uu ku ciilan yahay calanka uu hooyadii ay ku ciilan tahay calanka ay ku ciilan tahay uu ku ciilan yahay bayloodku wuxuu ahaa ninka lagu faano buu ahaa bayloodku wuxuu ahaa ninka la hiigsado ayuu ahaa ee adduunyada ku tartanto ayuu ahaa inagu bayloodkeennii ayaynu gudaafa dhex jeexinay bayloodkeennii ayaynu kaniif dhex jeefanay sidee inoo qabataa inama qabatataa kamana geyno madaxweynaha adeerkay waxaan ku leeyahay adeerkay Ismaaciil Cumar Geele waxaan ku leeyahay abaalkaagii 2006 kugu ekaato abaalkaagii 2006 baan guday maanta waxaan gudayaa abaalka shacabka reer Djibouti waxaan gudayaa abaalka walaalkay Fuad Yusuf Ali ayaan gudayaa ayaan leeyahay halka aad igeynaysaan anigu diyaar baan ahay aniga faraxsan aniga oo qoslaya aniga oo ku sheegaya inay aniga in iga badan oo iga karti badan ay igu jirto magaalada Djibouti iyo Djiboutiyaanku ay joogaan ayaan ku sheegaya aniga oo qoslayo oo faraxsan aniga oo ku faraxsan xaqa aan ku hadlayo aniga oo ku faraxsan inuu Ilaahay iga garab galayo aniga oo ku faraxsan inaana guuleysan doono aan hubo ayaan kula hadlaya adeero maanta sidii aad igu soo baxdeen reer Djibouti abaalkiini ayaan gudayaa abaalkii waxaan gudayaa oo igu lahaa walaalkay Fuad Yusuf Ali madaxiisu haraago baan leeyahay walaalahayo hadal inta idinka sii badin maayo walaalahayo aad baan idin salaamayaa meel walbo aad joogtaan ballanteennuna waxay tahay libinta oon gaadhno oon insha Allah aad soo baxdaan meel walbo aad joogtaan aad soo baxdaan rag iyo dumar iyo ubad iyo dumar iyo dhalinyar waan arkayaa ee raggii mee mar walba waxa u horkaca ummadda oo u horseeda waa hooyo ayaa mar walba diidida iyada weeyaan ta inanteedu guriga dibloomada ula dhex fadhiyaan ee loo ooyayaan iyada weeyaan ta inanteedu shaqada ay joogaan ay ku ciilan yihiin ee lagu cadaabayo waa iyaga weeyaan
وإيادا تحبدا باستدا اللغو قاليي وإيادا تمر وليبا قنت ريرك وإيادا هويوي أطر ويلكاغا هويوي أطر قبردادا آيوهوغا هكا آموسين inta aad u gilgilan karto u gilgilo sida ay noogu soo dhiibeen hooyooyinkeeni soo halgamay inaan anaguna ugu sii dhiibno kartida iyo raganimada ubadkeenu waa lagama maarmaan waa muqaddas Djibouti way jiri xumaantuna way tagi Djibouti way jiri xumaantuna way tagi inaga oo gacmaha is haysana oo qas iyo qalalaasa sameeyeen oo shakhsi kaliya diidayna oo leh adeero waan ka daragnay hadii waan ka daragnay waan ka qosanay waan ka qanacnay hadii adeer ixtiraamka iyo waalidnimada aan ku hayo ayaan kugu ixtiraamaya wali waxaana ka codsanayaa in aad si qurux badan sida aan kugu karaameyneen kugu maamulnay ku cimaamadnay inaad adiguna uga degto meesha adiga oon dalka qalqalaasa gelin adiga oon dadka dhibaato u keenin anagu waayo dhimasho ayaanu diyaar u nahay haddii ay gaadho dhimasho ayaanu diyaar u nahay tani rag baa u soo dhintay tani dumar baa u soo dhigtay laakiin geesigeyga maanta uu dhiman gaarideedii maantuna way joogtaayo diyaar u tahay inay u dhimato geesigeediina diyaar buu yahay inuu dhinto waa kaa isaga oo qoslaya qabrigii aad ku rideen idinka soo diraya fariinta Djibouti aad bay shucuurteedu u kacsan tahay iga raali haddii aan hadalka idinku badiyay laakiin waajib baan gudanayaa waajib diinimaan gudanaya halka uu salaada ku tukanayo ayaa aad noqotay midan qaadan kari waayay rajo badanna waan lahaa horena waan idinku soo sheegay hadalka ku noqon maayo aad baan idin salaamayaa walaalahay waxaan idin leeyahay waynu guuleysan doonaa wanaag baynu ku soconaa Allahu akbar ha lagu soo baxo Allahu akbar ha lagu soo baxo Allahu akbar ha lagu soo baxo walaalahayo halkaasaan kaga baxayaa hadalkayga aadna waan idin salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ummadda reer Djibouti dal iyo dibad meel walba ay joogaan waa aniga oo ah deeqa ciise duhur waxaan halkan kala hadlayaa ummadda reer Djibouti dhammaantoodba ku dibad jooga iyo ku dal joogaba waxa halkan maanta isoo taagay oo aan ka hadlayaa waa dhibaatada walaalkeen Fuad Yusuf Ali haysata Fuad Yusuf Ali arintiisu imika ma bilaabmin in badan ayay socotaa arintiisu intaas oo dhan ay socotana waxa aan aniga oo deeqa ciise aan uga aamusnaa rajaan sugay rajo ayaan qabay rajo ayaan ka sugayay madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Geeli waxa aan ka sugayay ina ka arintiisa si wanaagsan loo rido si fiican waxa uu tabanayo iyo waxa uu sheegayo oo runa oo midbeeniyo ku jirin ina laga cafiyo la xaalmarin loo sameeyo la isdaba qabto isaga ayaa maanta madaxweynuhu u ah dalka hogaamiye aabo u dhaxeeya ummadda waxaan halkan idinka sheegayaa ummadda reer Djibouti sida aad u dhantihiin rag dumar wiil gabadh yar iyo weyn waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayn ayaan idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa inaydan gaari ka marnayn ayaan idin sheegayaa waxaan idin sheegayaa inaydan geesi ka marnayno Fuad Yusuf Ali ayaa geesinimo idinku filan aragti la arko geesi amba la dhandhamiyo waxa idinku filan Fuad Yusuf Ali gaarina de isku sheegi maayo way idinka buuxdaa idinka ayay idinka buuxdaa gaari idinka ayaa 24 saacadood dumarka reer Djibouti ay ka hadlayaan facebookyada oo dariiqyada socdaan iyaga iyo ubadku waxaan la hadlayaa ummadda reer Djibouti baan la hadlayaa degta si fiican u fura reer Djibouti dulmiga halka aad ka arkaysaan ee 24 saacadood halka la idinka tusay waa wax la inagu itixaamayo
ووح إلهي إنكو إتحاميو ووح مالك قيامها لين سو جوجين دونو لين كو إتحامي دونو لين ويدين دونو ولا الكينا كنت كنية كنيف كل حتى كنية كنيف كل حنول وح أينو بهاللي ويندي ولا إنه ويدين أقرأنا يا إنا دركتين إنا دلا درينتين أنت وفؤاد حريه لبتشر أيو دلكو قريري جبوتي لبتشر أيو دلكو قريري إنا كلي هاي يا إنا أمضوا إلى درينتين ويسوي شيء دونان وأنا على مضى كتصيصة إنا أو لا إذا كدونا يفعل إنا تسميسان رجبوتي هذا iyo waqtigii hunu loo baahnaa mid toona ma joogno aniga oo deeqa ciise duhura waxa aan halkan aan idin ka leeyahay oon maxaa la yiraahdaa idin ka soo diraya fariin aad u culus oon ku doonayo bari toole jimcaha inaad ku garab joogsataan walaalkiin Fuad Yusuf Ali